إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. walaaladeen maxamed honi miidiya cabdinaasir axmed waxay naga soo codsadeen inaynu soo qaadano taariikhda sheekh cabdalla matruud. insha allahu tacaala waxaynu soo qaadan doonaa taariikhda sheekha oo kooban, qiso xanuun badan oo sheekha ku dhacday, fursadda imaamnimada masjidka xaramka oo sheekha soo martay, iyo sababaha uu uga tegey imaamnimada isagoo muddo ku dhow 45 sano imaam ahaa. soo dhawaada, baaraka allahu fiikum. intaynaan taariikhda sheekh cabdalla matruud aynaan u gelin, insha allahu tacaala su-aal inagaga soo noqotay xalqadii hore aynu kaga hadlaynay sheekh maxamed alcurayfi ayaynu insha allahu tacaala ka jawaabi doonaa. walaasheen xabiibe axmed ayaa waxay tiri, waar ninkan sawkii soomaali aflagaadeeyey maxaa kaa galay oo aad u buunbuuninaysaan? intii aan taariikhda sheekh maxamed alcurayfi aan baadhayay ee aan ku jiray maan arag meeluu soomaali ku caayay. waxaa jirta fiidiyow uu sheekhu ku soo qaatay qiso markaasi dhacday oo xataa culimmada soomaalidu ay ka warramaan oo aan ka maqlay. qisadaasi isagoo sheekhu ka warramaya oo dadkuna ay aada ugu qoslayaan, waxaan filayaa walaasheen inay qisadaasi si qaldan u fahantay una qaadatay sheekhu inuu soomaalida ku ciyaarayo. فحملوه وذهبوا به إلى مستشفى أجياد اللي مقابل للحرم. laakiin qisadaasi waa nin Soomaali ah oo markaasi mii ka tegey kadibna xaj ka tegey. xajkii markuu tegey isagoo dawaafayuu markaasi suuxay. markii uu suuxay ayaa markaa waxaa la geeyey dhakhtar. markaa meel wada cadaana oo qurux badan oo aan weligii hore u arag markuu soo toosay ayuu arkay. waa qof xaj tegay oo acmaal wanaagsan oo khayr oo ilaahay wax wanaagsan ka filaye wuxuu u qaatay inuu dhintay kadibna uu jannadii galay. markaa cadaankan iyo meeshan quruxda badan leh. markaa qisadaasuu sheekhu soo qaatay runtii oo qosol badan, dadkuna ay aada ugu qosleen. markaa cay uu soomaalida caayay maaha, laakiin waa qiso jirta xataa culimmada soomaalidaan anigu ka maqlay. markaa sheekhu intaan baadhayay soomaali meeluu ku caayay maan arag. qolo waxaa jirta Soomaaliya oo sheekha magaciisa tabarucaad ku ururinayay. qoladaasuu markaa sheekhu ka soo horjeestay oo uu yiri anigu lama socdo. taana xaq buu leeyahay oo qofka haddii magaciisa lagu ururinayo ogeyna xogta meesha ay ku baxayso iyo cidda la siinayo iyo waxaasoo dhan aan lala socodsiin, xaq buu leeyahay inuu dadka u caddeeyo oo uu yiri anigu waqafka kuma jiro, magacayga in lagu ururiyana maaha. markaa sidaasi weeyaan, laakiin ma arag sheekhu meeluu Soomaali ku caayay. sheekh cabdalla matruud waa qaari runtii aada codkiisa loo jeclaa caalam alislaami, aadna soomaalidu ay u dhagaysato codkiisa. waana sheekh runtii aada u cod macaan. miidiyaha iyo maaragtay kuma jiro inta badan, xogtiisana kama helaysid. markaan taariikhda sheekha baadhayay waxaan helay fiidiyow uu dhowaan markaasi laga duubay sheekha oo uu kaga warramayo yaraantiisii iyo waxa uu soo maray. laakiin inta badan qoraalada iyo taariikhda sheekha oo markaasi qoran oo nidaamsan ma helaysid. markaa fiidiyowgaasi ayaan markaasi sheekha qisadiisa ka soo qaatay. weliba taariikhdiisuna waxay u badanaysaa yaraantiisii iyo tajribaadkii iyo heerarkii uu soo maray insha allahu tacaala. markaa waan isu geegeeyey, waraysi buu ahaa. waxaa laga yaabaa waryuhu inuu kolba meel u boodo isagoo sheekhu markaasi ka warramaya taariikhdiisa. markaa waan isu soo ururiyey insha allahu tacaala. fiidiyowga sheekhu uu kaga warramaya taariikhdiisana commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala ayaan inoo soo dhigayaa. washajaratan takhruju min tuuri saynaa tanbutu bidduhni wa sibghin lil'aakiliin. sheekha magaciisa oo dhammaystiran waa cabdallah binu maxamed binu cabdallah almatruud. waxa uu ku dhashay tuulada kharaj 1383 1963. waxay ahayd tuulo ay dadku ku yaryiin oo beeraley ah. waxay u soo guureen magaalada Riyaad oo ahayd magaalo camiran oo ay dadku ku badan yihiin. dugsigiisii hoose ayuu sheekhu bilaabay.
waxa uu yidhi galaaska afaraad marka aan ku jiro waxaa jiray laba arday oo aanu isku magacakayn oo la odhan jiray iyagana cabdallah binu maxamed binu cabdallah saddexdaa magac aanu isaga ekayn imtixaankii natiijadii markii ay soo baxday waxaa ii soo baxday inaan imtixaankii dhacay aad ayaan u murugooday anigoo ooyaya ayaan gurigaygii ku noqday waxaa albaabka nagu soo qoraacay buu yidhi sheekhu maamulihii iskuulka kadibna waxa uu igu bushaareeyey inaan imtixaankii baasay waxaanu markaasi siiyey shahaadadii dugsiga hoose waxaanu igu yidhi waxaa dhacday markaasi qalad xagga magaca ah sanadkii shanaad ee iskuulka markaan ku jiray ayaa waxaan ka qayb galay markaasi tartan la qabanayay oo ciyaarta la yidhaahdo jumbaaz ka ah ama ciyaarahan la boodo ee la biintiyeeyo ciyaartaasi ayaan ka qayb galay waxaana jiray macallin markaasina tababara oo aad u firfircoon oo la odhan jiray markaasi axmed al amiin tartankaa markii aan ka qayb galay anigoo iskuulka iyaga matalaya ayaa waxaan u galay kaalmaha ugu sarreeya waxaanan soo qaatay markaasi jaa'isad ayaa laysoo siiyey isla sanadkaa shanaad ayaa waxaa ii yimi macallinkii tarbiyadda waxaanu igu yidhi waxaa jira tartan khaliijka ah oo heerka labaad ee kubadda cagta ah waxaana tartankaasi aan rabaa inaad qur'aanka ka akhrido waa si wanaagsan ayaan idhi tartanka waxaa la qabanayay markaasi 1329kii da'diisu wakhtigaasi waa ilaa 9 jir meelahaasi waxaana lagu qabanayay garoonka la yidhaahdo saa'iq mikrofoonkii ayaan soo istaagay wax yaroo gaaban ayaan ahaa waxaa lay dhigay karaatoontii baan fuulay mikrofoonkii baan istaagay kadibna qur'aankii ayaan akhriyey markii aan dhameeyey ee aan meeshaydii dib u fadhiistay ayaa waxaa laysoo qabtay gacanta kadibna waxaa lay geeyey boqorkii wakhtigaasi sacuudiga haystay ee boqor faysal ayaa lay geeyey kadibna waxa uu igu yidhi insha allahu tacaala waxaan kugu arki doonaa masjidullaahi alxaraam gacanta haddana laysoo qabtay dib ayaa lay celiyey intii aan ku jiray fasalka shanaad ilaa fasalka lixaad waxaan tujin jiray masaajidka uu aabbahay imaamka ka yahay marka uu ka maqan yahay weliba waxaa lay dhiibi jiray buu yidhi salaadaha jahriga ee kor loo qaado salaadaha aan kor loo qaadin maan tujin jirin laakiin salaadaha kor loo qaado ayaa lay dhiibi jiray anigoo markaasi aad u yaraa sidoo kale intii aan dugsiga dhexe ku jiray iskuulka waxaanu ka qaadi jirnay nashiidooyin baanu qaadi jirnay sidoo kale riwaayado ayaanu markaasi matali jirnay nashiidooyinkii aan qaadi jiray waxaa ka mid ahaa buu yidhi sheekhu تميم الدار مدرستي وعرين الجيل markii dambe haddana waxaan u jeestay wuxuu yidhi xagga heesaha oo waxaan qaadi jiray markaasi heesaha waxaanu ahay markaasi koox isku galaas ah ama koox isku iskuul ah qaybi waxay tumi jirtay muusiga anigu waxaan samayn jiray buu yidhi laxankana waan saari jiray waanan qaadi jiray macallimiintuna waxay noo soo samayn jireen ereyada weliba macallimiinta luuqadda carabiga ayaa noo soo samayn jiray sidaasi ayaanu u qaadi jirnay kolba meel ayaanu ka qaadi jirnay xataa inaanu gaadhnay meelaha markaasi xagaagii la isugu yimaado ee masraxiyadaasi inaanu riwaayada ka matalno oo markaasi aanu heesa ka qaadno heesihii aan qaadi jiray waxaan kasii xasuustaa ayuu yidhi sheekhu هل رأى الحب سكارى أذكرها كذا يعني sheekhu waxa uu yidhi intii aan ku jiray fasalka labaad ee secondariga ayaa macallinka tarbiyadda wuxuu iga codsaday inaan ardayda qur-aanka ka dhagaysto oo aan qur-aanka u dhigo sidaa awgeed ayaan ardayda qur-aanka ka dhagaysan jiray oo aan markaasi u dhigi jiray markii aan secondariga ka baxay muddo 4 sano ah maan gelin markaasi jaamacad waan shaqo tegay markaasi shaqooyin fara badan ayaan soo qabtay shaqooyinkaasi waxaa ka mid ah inaan dhismaha ka soo shaqeeyey sidoo kale inaan ganacsiga wax iibin jiray markaa shaqooyin badan ayuu sheekhu soo qabtay sidoo kalena waxa uu ahaa markaasi imaam masaajid markaasi tujiya 4 sano kadib aabbahay ayaa wuxuu iga codsaday inaan jaamacadda galo waxaanan markaasi galay jaamacadda kulliyadda markaasi culuumul qur'aan xoogaygii oo dhan markaa waxaan saaray qur'aanka kariimka ah tafsiirkiisa iyo qiraa'aadka culimada aan aadka u jeclaa aan codkooda dhagaysan jiray waxaa ka mid ahaa sheekh manshaawi oo codkiisa runtii uu aad kuu saameynayo uu aadna u macaan yahay uu yidhi oo sheekhu uu qisada wakaanama inaad qur-aanka markaad isaga dhagaysanayso waxa uu yidhi qisadii inaad ku dhex jirto oo kale ayaad moodaysaa waxaanu soo qaastay qisada nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markay walaaladii ay godka ku tuureen ee ay maradiisa soo qaadeen markaasay dhiig mariyeen ee aabbihii ay u keeneen markuu ka warramayo qisadaasi aayaddaasi ayuu soo qaadanayaa sida uu sheekh manshaawi uu u akhriyo
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تصور المشهد. qisadiisana waynu ka warranay sheekha insha allahu tacaala xagga hoose ayaan soo dhigayaa fiidiyowga aan kaga warramayo qisada sheekh Manshawi raxmatullaahi calayh. Cabdalla Madruud waxaa ku dhacday qiso runtii aad u xanuun badan, noloshiisana aad u saamaysay markaasi, isagoon tafaasiisheeda ka warramin haddana in yar ka taataabtay sheekhu. qisadaasi waxay ku saabsantay markaasi qofuu sheekhu aad ugu kalsoonaa, kalsooni aad u weyna uu siiyey oo aad ay isugu dhowaayeen, ayaa markaasi lacag aad u fara badan oo weliba badhna aanu isagu lahayn ayuu qofkaasi ka dhacay. waxaanu ku dhaartay markaasi oo dhaar ayuu ku maray inaanu lacagtaasi ka qaadan, sida aan qisada u fahmay. sheekhu qisadaasi ayaa xanuun badan ku yeeshay, isagoo deynna lagu yeeshay, sidoo kale qofuu aad ugu kalsoonaa oo aad ugu dhowaa oo aad ugu jeclaa inuu khiyaamada intaa le'eg ku sameeyey. waxay keentay sheekhu isagoo khudbadaynaya oo khudbadda masaajidka u taagan inuu markaasi suuxo. waxa uu yidhi 2 ilaa 3 jeer ayay suuxitaankaasi igu dhacday oo aan markaasi dhacay anigoo tujinaya ama khudbadda akhrinaya. waana xanuunka ay ku haysay markaasi qofka uu aadka ugu kalsoonaa ee haddana khiyaamada intaa leeg ku sameeyey. waxa uu yidhi muddo 10 sano kadib ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaqii caddeeyey oo uu bari yeelay. dadkii igu odhan jiray markaasi ay igu lahaa odhan jiray been baad noo sheegtay, xoolahayagii baad dhacday, lacagtaydii baad naga dhacday, beenaalaatay. muddo 10 sano kadib ayaa waxay bilaabeen 10 sano markii ilaahay xaqii caddeeyey, 10 sano markii markaasi maxkamaddii uu ilaahay xaqii caddeeyey ee aan beri noqday ayaa ay dib ii raali geliyeen. muddo 10 sano ah waxay igu lahaayeen beenaalaatay, saasaad nagu samaysay, laakiin 10 sano kadib ay ii raali geliyeen oo ay igu yidhaahdeen markaasi naga raali noqono saamax. sheekh Cabdalla Madruud waxaa soo martay fursad uu ku noqon lahaa imaamnimada masjidullaahi alxaraam. waxa uu yidhi taariikhdu markay ahayd 1404 waxaan tujin jiray markaasi masaajid ku dhow wadada markaasi. kadibna waxaa soo maray sheekh ka mid ah culimada waaweyn oo salaadii maqrib markaasi la soo tukaday. sheekhaasoo magaciisa la yidhaahdo Maxamed ibnu Subayr. kadibna markii salaadii maqrib aanu ka baxnay ayaa wuxuu igu yidhi codkaagu aad ayuu u fiican yahay, waxaan rabaa inaad masaajidka xaramka aad igu timaado. waxaan ku yidhi aynu wada fadhiisanno. kadibna waxa uu yidhi waan degdegayaa markaasi oo shir baa jiray uu ku degdegayey, laakiin waxa uu yidhi waxaad igu timaadaa magaalada Maka igu kaalay insha allahu tacaala. waxaan ku yidhi markaasi waalidkay ayaan la soo tashanayaa, kadibna aniga ayaa kugu soo warcelin doona. arrinkii markaan u sheegay hooyaday ayaa waxay igu tiri markaasi joog masaajidkaagan iyo halkan aad joogto joog. anna waxaan ku yidhi waa si wanaagsan, hooyaday ayaanan ka aqbalay. sidoo kale sheekhu sababaha uu uga tegey inuu imaam masaajid ka noqdo waxaa ka mid ah, waxa uu yidhi muddo 45 sano ah anigoo markaasi masaajid imaam ka ahaa oo kolba masaajid markaasi tujinayay muddada intaa leeg imaam ahaa, oo wasaaradda diinta iyo awqaaftana aanu wada shaqayn jirnay oo intaasoo jeer ay shaqooyinna dhex mareen oo ay markaasi si fiican ii garanayaan, ayaa haddana waxay yidhaahdeen imaamka waxaa looga baahan yahay in imtixaan laga qaado, waana system cusub. marka waxaan ku yidhi muddo intaas leeg ayaynu wada shaqaynaynay oo wasaaradda aan ka tirsanaa oo markaasi aan imaam ahaa, intaasoo taskiyaad iyo intaasoo safar baan u baxay. waxaan u baxay waddanka Jarmalka 25 masaajid ayaan soo tujiyey, iyadaana markaasi ii fududaysay tegitaanka iyo hawshaasoo dhan. muddada intaa leeg oonu saa wada shaqaynayna haddana in wixiiba laga soo bilaabo bilow oo zero laga bilaabo, arrinkaasi ayaanu isku diidnay. anna sidaasi ayaan markaasi uga joogsaday. markay yidhaahdeen waa inaad laabudda waa inaad imtixaan gashaa, anna ku yidhi maadaamoon intaa shaqaynayey oo intaasi aan imaam ahaa, haddii aydan sidaa igu aqbalahaynin sidaasi ayaanan kaga joogsaday. allah subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo, cimrigana allah ha u dheereeyo, towfiiqdana allah subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.